مسؤوليته هي تغيير حزب قاعد قبل كسنة يا ما تحفلت أي تلوي نقص الشديدية قدومية راح حزب قاعد شنو بس على ورابك وقبتي حرمت الشركة المهوران المقاعد عقابه وحكوا حفلتنا يفرنوا كوك بنية تغيير يا شاعر وحساسيين تاع حزب قاعد قصة كان تكبدي سيد بدي سبعة وحنا وبهرين كهذا حقيقة حزب قاعد قبل كسنة فيصل محمد عطل وشياقينا يقصيه شركة كلها فلنتا حلك لقى قاعد قدومية راح حزب قاعد فيصل على ورابك لقونا دورته وكان كعصب يكمل قارك afhayeenka xisbiga cid gobolka Sanaag Faarax Saciid ayaa isaguna dhinaciisa ka dalbaday inuu Faysal Cali Waraabe inuu la shaqeeyo maamulka cusub waxaana xusay in muddadii dheereed ee xilka hayay Faysal si fiican loo soo shaqeyn jiray gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga cid magaalada Caargaabo oo Hindistar Jaamac Xogside oo iyaduna madashaasi ka hadashay ayaa ugu baaqday siyaasiyiinta iyo taageerayaasha xisbiga cid inay dhagaha ka furaystaan muranka iyo xasarada uu gudoomiyaha hore la hortaagan yahay warbaahinta gudoomiyaha xisbiga cid degmada dhaxray asma sheegay inuu ka xun yahay hadalada iyo dhaqdhaqaaqyada wada gudoomiyaha hore xisbigaasi kuwaas oo lid ku ah buu yiri sumcadda iyo mustaqbalka xisbiga kulankan oo si weyn loo soo gaasimaya waxa kale oo ka hadlay dad kale oo fara badan oo dhamaantoodba ka soo horjeeda hadalada gudoomiyaha hore xisbiga ka soo yeedhaya taliyeenti khilaaf ku soo kala dhaxgalay hogaamiyaha xisbiga cid iyo mas'uuliyiinta sare ee xisbigaasi ayaa waxa soo taraya taageerayaasha iyaga aaminsan in si sharci ah loo maray nidaamka bedelaadda hoggaanka sare ee xisbigaasi cid injineer Faysal Cali Waraabe عبد القادر أحمد حسن عرقابه